بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دواده برنامج gaar ah oo aan toddobaadkan kaga hadlayno dhaqaalaha gaar ahaan miisaaniyadda Somaliland. waxaa barnaamijka marti waa isla markaana ila qaada dhigi doona xaaladda dhaqaalaha ee Somaliland. xeelera dhanka dhaqaalaha ku takhasusay isla markaana wax badan dhaqaalaha ka yaqaana bangiyo kala duwan la soo shaqeeyay isla markaana xirfadiisa gaarka ay tahay dhaqaalaha iyo waliba sida loo ukumo iyo waliba sida markaasi loo dabagalo iyo sida markaasi loo dajiyo intaba. Cabdi Ali Daakir dhaqaalayahankan oo ka soo jeeda Somaliland ayaa markaasi waxa noo suurto gashay in aanu guud ahaan dhaqaalaha Somaliland aan si weyn uga sheekaysano. marka hore Daakir ku soo dhawow barnaamijka. aad baan marka hore aad u mahadsantihiin dhammaan maaragtay waa Bari TV shaqaalihiisa meel kastuu joogo. marka xigtana dhammaan luqadaynu ku hadlayno oo luqadda Soomaaliyeed dhammaan Soomaali meel kastii joogto waan salaamayaa. waanan dhawahay walaalo. Daakir waxa tahay dhaqaalayahan runtii ku xeeldheer dhaqaalaha oo si weyn dhaqaalaha ugu takhasusay isla markaana wax badan ka wada dhaqaalaha Somaliland. dhawaantan miisaaniyad baa la ansixiyay Somaliland dhaqaalaheeda oo runtii aad iyo aad u tiro badan sida qiyaastii la sheegay inay tahay 362 milyan oo dollar. marka bal waxa faahfaahin ka bixisaa dhaqaalahaasi iyo miisaaniyadaasi waa noocee. haddii aan wax yar isdul taago miisaaniyadda waa run saad u sheegtay miisaaniyadda dalka jamhuuriyadda Somaliland ama dalka ayaga waa la ansixiyay 362 milyan oo dollarka Mareykanka ah ayay ahayd runtii iyadoo baarlamaanka uu baasgareeyay oo arkayay markii baarlamaanka intayna imanna ay maaragtay golaha wasiiradu ay soo baasgareeyeen runtii Marwo Samsam oo ah wasiir maaragtay sharaf mudan oo ah wasiirka maaliyadda ay dhex keentay maaragtay golihii maaragtay baarlamaanka ama golihii wakiilada halka iyada ana gacanta loo taagay isku duuduubna maaragtay lagu ansixiyay. waa run saad sheegayso maaragtay budgetka in la fahmo ayaa qurux badan. budgetka hadaynu eegno budgetku muxuu yahay marka hore caalamka sida ay wada og yihiin ama sida qof kasta uu la socdo budgetku waxa weeye waa darooska miisaaniyadda sanadka soo socda taasoo ah arin ah mala awaal iyadoo oo la qiyaasayo kharashka dawladda ee soo socda oo lagu adaroosayo maaragtay arin ah qiyaas inay ku socoto iyadoo arintaasi ay ka turjumayso arrimaha dalka in lagu ilaaliyo oo ah spendingka iyo waxa la yiraahdo developmentiga sax iyo maaragtay kharashka dawladda iyo wixii horumarka dalka ah. Daakir aan hadalka aan la sii go'go'sanay lacagtan miisaaniyadda ee la ansixiyay aad u tiro badan tahay ma la oran karaa dakhli noocaas oo kala ayaa ka soo xaroon kara Somaliland. runtii waxa aad iyo aad marka hore aan qof kasta u ogeysiinaya marka la leeyahay dakhliga laga hadlayo soo xarooda waa loo baahnaa in la ogaado waayo waa miisaaniyad waxa laga hadlaya. miisaaniyadduna waxa loogu talagalay waxa weeye uu adeega danta bulshada iyadoo laba qaybood ay aadaysan ku sheegay oo ah spendingka oo ah kharashka dawladdu ay isticmaalayso iyo dhinaca kale oo ah wixii horumarka gaaraya. ilaahay mahadii waxa ah maaragtay baarlamaanku inuu cadeynayay aan arkayay qof kamid ahaa guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada gudihiisa uu sheegay 80% inay tahay spendingka. halka iyada waxaad aragtaa walaalo in marka hore ee la keenayay miisaaniyaddaba ama la ansixinayay in markii horeba aan laga doodin oo ay ahayd in la ogaado dakhliga dalka u soo xirooday intuu ahaa oo dakhligu xaguu ka yimi marka la isweydiiyo oo ahayd in la isweydiiyo cashuurtii dalka u soo xirootay inteebay ahayd in la isweydiiyay ahayd World Bank miyuu dalka lacag siiyay sanadkii dhamaaday inteebay ahayd in la isweydiiyo dakhliga kale ee maqan oo ahaa wasaaradda macdanta oo kale saad ula socotid laysamay bixisaa oo wadanka waxa ka jira waxa la yiraahdo sahamin petrol baa jira iyo sahamin macdan inta taa u gudbin dakhliga soo xiroonaya waxay ahayd marka hore in la ogaado oo la yiraahdo taxigii soo xirooday intaas waxa
dakhligii dunida inagu caawisay intaas u ahaa marka waxa la garan lahaa in maaragtay miisaaniyadda kororka meesha uu ku jira la arki lahaa laakiin waxaan may sheegin waxay yiraahdeen miisaaniyadda la soo daayay waxa weeye 362 million dollars iyadoo oo taas lafteedu ay ka soo horjeedaba haddii aad eegto miisaaniyaddii sanadkii hore 2016ka waxaa hortaala sida aad ula socoto markaynu ka duulno taxationka ama financial institutionka markaynu ka duulno in la isweydiiyo ayay waxay ahayd odhadkii ma shaqaynaya mise ma shaqaynayo wasaarad kasta ama meel kasta oo lacag loo shubay dabagal miyaa lagu sameeyay marka it is the law inta taan u gelin dabagalka waxaan ka hadlaynaa isdul taagaynaa miisaaniyadda iyo maadaama dhaqaalayahan tahay waxa dadka qaarkiis sida dhaqaalayahanada oo kale oo kula midka ah qaarkood waxay ku leeyihiin waa numbers meesha laga sheegay laakiin dakhligaasi ma cagcageenayo ama ma laga filayo Somaliland tamaamsantaadu runtii waxa hortu ilaahay mahadiya aad sidaad sheegtay waa run 47 million dollar ayay dawladdu ugu timi budgetka xilligii daahir riyaal ka hayn marka 362 milyan farqi baa u dhaxaynaya markaad eegto laakiin waxaan rabaa inay dadku ogaadaan miisaaniyadda caalamka maxaa loogu talagalay tusaale ahaan dalka aynu joogno maanta ama wadamada aynu wada garanayno oo dhan oo dhaqaalahoodu maaragtay xagga hore caalamka ka ah waxaa loogu talagalay in ummadda iyo dadka iyo dalka lagu ilaaliyo runtii Somaliland waxaad moodaa markay leedahay dhaqaalihii baa koray waa budget waxay ka hadlaysaa waxa koray waa budgetku markaa sidaad u ogtahay waa adroos miisaaniyadeed waa mala awaal marka haddii ay ka hadlayso mala awaal horta waxay ahayd mala awaalkii sanadkii hore ahaa 2016 iyo 2017 in la isbarbar dhigo laakiin haddii shay mala awaal la barbar dhigo dee wuxuuba khalad bay ahaayeenba marka waxaa aad iyo aad u quman kororka dhaqaaluhu meelaha uu ka yimaado dee waa la garanayaa saad ula socoto wax soo saar dalku ma jiro oo warshadaha aan eegno marka xagee bay marka adigu aad qiimeyso ama darayso ama xog dheer aad ka hayso xagee baa dakhliga ugu badan Somaliland ka soo galay runtii Somaliland waxa aad iyo aad marka hore shacabka wanaagsan aan magacooda ku hadlayo aan gaarsiinaya iyo xukuumadaba waxa dalka iyo ummadaba ceeb ku ah runtii 7 sano in khalad la barbar dhigayo oo khalad soo socday la barbar dhigayo khalad kale tusaale yarna waan ku siinayaa haddii madaxtooyada dalka saad ula socoto khaladku soo noqono laakiin waxa rabnaa dakhligu xagee ka yimaada dakhligu wuxuu ka yimaadaa waxa weeye waa cashuurta oo aan la sheegin intay tahay intii soo xerootay iyo deeqaha caalamku ay bixiyaan iyo World Bankigu lacagu bixiyo waxa taas iyadana ilaha kaabiyaasha dhaqaalaha sida dekadaha iyo labarada runtii wax oo dhan waxaad isku qabataa adeega cashuuraha iyo waxan oo dhan waayo dekada waxa ka yimaada cashuur weeye la garanayo marka dhinacan hadaad eegto waxa jiray oo ahayd in laga hadlo wasaaradda macdanta oo ahayd meelaha dakhligu ka imanayay dakhliga laftiisu wuu maqan yahay meeluu aaday 7 sano lama yaqaano waliba jiraan shirkado waaweyn shirkado soo saaran ilaa intii uu dalka qabtay madaxweynaha sharafta leh ee mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo shirkadahana way soo galayeen qaar baa ku jiray sahamin shidaal ku jiray qaar baa waxay ku jireen inay macdantii dalka intay baaraan maraakiib raranayay lama yaqaan ilaa hadda lacagtaas meesha aaday marka dakhliga hadaad eegto wax yar aan ku tuso dakhliga ka soo baxa sawir caadi hadaad eegto dalka Masar oo kale wax yar dalka Masar waxa la eegayaa dakhliga soo gala 4 meelood dhowr meel baa soo raacdaan u malaynaya warshadaha waxa la hayaa dakhliga soo gala waa la qoraa waxa kale oo la soo qoraa dalxiiska dhaqaalaha ka yimi waxa kale oo la soo qoraa adeega dakhliga ka yimi waxa kale oo la soo qoraa warshadaha dakhliga ka yimi iyo beeraha marka wax la khaldi karaba maaha laakiin waxaad moodaa Somaliland waxa maqan runtii wax soo saar ma jira dalka oo weyn ognahay GDP-ga Somaliland de lagama hadalba marka kororka dhaqaalaha la sheegaya xaguu ka yimi waa taata ah inay shacabku fahmaan dawladana ay tahay inaysan sameynba waayo hadii la yiraahdo budgetka la kordhiyay
caalamku budgetka in la kordhiyo ma jeclo waayo taxi payersku ma jeclo oo iyaga de cashuurtiiba ku kordhaysa halka iyada ah Somaliland waxa maqan sidaad la socoto dalka shaqo kama jirto Somalilandna cashuurtiiba ummadii lagu kordhiyay oo meelaha qaar kood 10 jibaar la gaarsiiyay tusaale yarna waan ku tusaya xilligii daahir riyaale ka hayna dad u noqoto wax yar aad eegto waxaad eegaysaa gaari markuu dekada berbera lagu cashuurayo gaari 1000 shilin buu ahaa $1000 buu ahaa cashuurtu waqtiga xaadirka ana wuxuu marayaa 6000 iyo ka badan buu aadayaa dollar marka korarka waxa weeye waa kobcin la kobciyay cashuurtii ummadda la saarayay dakhligan marka iyada ah ummaddu ma awoodayso waayo ummaddu income ma soo galade shacabka ma soo galo shaqo ma hayaan waa qofku markuu shaqo hayo income baad leedahay marka Soomaa marka cashuurta waa lagu kordhin karaa laakiin dunidu ma ogola soo galaan leedahay dunidu ma ogola wadan aan shaqo ka jirin cashuurta lagu kordhiyo dadka muwaadiniinta ah waxana la yiraahdaa waa ta dhaqaalaha dumise walaal Cabdi Cali daakir miyan waxaas oo dhan oo aad hadda xusayso waxay kula tahay inaysan u muuqanaynin dadkii miisaaniyadan dejiyay iyo dadkii xisaabaadkan qiimeeyay ilaa wax kasta marka la sameeyo daraasad baa la sameeyaa daraasadahaas oo dhan waxa leedahay waa laga indhasaabo wax ka jira ma jiraan tan saxsantaa adigu fikirka wado runtii anu waxaan ku hadlayaa wax duubmaya yaalana runtii caalamka ma jirto tay waxa miisaaniyada Somaliland khalad ay ku noqonaysaaba caalamka ma jiro miisaaniyad la sii deyn karaa iyadoo oo miisaaniyadii sanadkii hore aan laga jawaabin waa caalamka oo dhan taasi maaha waxaan anigu qabo walaalo waana waxa loo sameeyay ordadka loo sameeyay waa waxa loo sameeyay sharciyada hor yaala ee lagu ilaalinayo dhaqaalaha dalka waayo dhaqaalaha dalka u soo xiroonaya waa in ordadku uu daba socdaa tusaale ahaan waan ku tusayaa inay khalad weyn u jiro hadii sanadkii hore wasaarad budget loo shubay oo miisaaniyad loo sii daayay ahayd kharashka ay isticmaalayso tay kharashka isticmaalayso waxay ahayd in xisaab xid la sameeyo ahayd Soomaa marka wali maynaan maqal xil inta uu mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu hayay talada ordadku wasaarad buu galay oo wasiir buu xiray ama wasiir ku xigeen bay is haystaan ordadkii ama hanti dhowr baa jira la yiraahdo hanti dhowrkiiba is haystaan wasaarad ama wasaaradii iska dhaafe waxa shaqeynaya gudidii ilaalinta hantida qaranka shaqeynaya waxaan u maleynayaa taa iyada ah qofku markuu ilaahay ka baqo waxa weeye boobku marka isaga waa su'aashan hore ku weydiiyay marka la ku weydiinayo kugu celinaya waxa ma si kala uga jawaabtay laakiin miisaaniyadan iyo khaladaadkan aad ka hadlayso ma waxa leedahay waa laga indhasaabtay mise waxa leedahay waa aqoon darra meesha ka jirta runtii waxaan ku tusayaa oo tusaale yar oo kale aan ku xasuusin doonaa si aad ula soo baxdo jawaabta hadii madaxtooyada dalka saad ula socoto hadii miisaaniyadii 7 sano ka hor xilligii daahir riyaale ka ahin ay 2 milyan oo dollar ay ahayd maantana ay 10 milyan marayso adaan ku weydiinaya jawaabtu maxay tahay markaa jawaabtu markaa iyada waxay tahay waxa weeye miisaaniyadii dalka loogu talagalay ayaa boob ku sugan oo tusaalena waan ku tusayaa hadii wasiir lagu hayo 10 guriyo waaweyn inuu leeyahay hadii wasiir lagu hayo isaga iyo xaaskiisii inay gaariyaan Land Cruiser ah ay wataan oo 100,000 ah waxa weeye wasiirkana saad la socoto wasiirka ugu badan 5,000 buu qaataa marka 5,000 hadaad ku dhufato 12 oo 12 months 6,000 buu helayaa Soomaa marka xagee ku jirtaa ama xagee ka timi tay wasiirku inuu haysto guri ama 10 guri wait ama 10 guri oo laga yaabo inuu yeeshayba wasiir ama wasiiradu ay yeelatay 40 milyan oo dollar 7 sano gudaheed maxaad markaa aniga iga weydiinaysaa ma khalad baa mise maysan fahmin waxa weeye miisaaniyada waxa loogu talagalay caalamka inay ummadda ilaaliso dawladana waxa lagu ilaaliyaa ummadda waa hal qodob dawlad kasta oo caalamka jirta haday budget ka tahay iyo hadii ay tahay si kale oo ummadda loo ilaaliyo waxa weeye khatarta laga ilaaliyaa ummadda laakiin xukuumaddu iyadaaba khatartii abuurayso waayo dhaqaalaha Somaliland haba yaraada jira laakiin waxay hayd in ummadda la gaarsiiyo Soomaa
tusaale waxaad u hay aan ku tusayaa ood aniga i weydiinaysaa mar labaad oonan soo noqon doonin haddaad eegto wasaarad waxaad arkaysaa loo shubay 9 milyan ama 5 milyan oo kale oo ninkan wasiirka ah ama agaasimaha ah uu ganacsi uu ku jiro okay marka qaranku uu shaqeynayaa mise ummadda maalkeedii oo ahayd in lagu ilaaliyo ummadda ayuu ku shaqeysanayaa inagoo waxba dhaliyeen su'aal cilmi ah markii la sameynayo budget ama miisaaniyad la sameynayo halkee laga duulaa thank you very much indeed marka hore waxaa la dabagalaa oo la keenaa si aad ula socoto qorsheynta dalka ayaa maaragtay marka hore dee maaragtay adroos badan eegaysa marka sida aynu la wada soconno miisaaniyaddu waxa weeye waa baahida taala inay ka turjunto oo ummadda loo sii daayo wasaaradda iyada ah oo adeega danta bulshada wixii ah in la sii daayo si aad ula socoto budgetku waa labada qaybood marka oo ah spendingka ama kharashka ay dawladdu isticmaalayso iyo developmentiga oo ah horumarka wadanka marka golaha wasiirada tusaalaan ku siinaya waa 60 wasiir iyo wasiir ku xigeen way marka maxay qabtaan budgetkiina boqolkiiba 80 wuxuu aadayaa spendingka waa kharashka iyagu isticmaalayaan saad ula socoto konton wasiir ama 30 wasiir baa israacaya gaariyaal qaadanaya budget intee leeg bay isticmaalaan eeg halka iyada ah waxaad arkaysaa 4 ama 5 wasiir oo Yurub maaragtay diyaarad qaadanayo oo socda oo wasaaradahoodii maaragtay soo cidleeyay budgetku markaa isaga ah wuxuuba yahayba waa wax ay iyagu maaragtay isticmaalayaan wadankaba budgetkuba wax loogu sameeyay ma jiro budgetka wax loogu qabtay wadanka ilaa hadda lama hayo marka xilliga runtii xilligii daahriyaale budgetku wuxuu ahaa ama miisaaniyadu waxay 47 milyan haddana waa 362 waa run gaab halkaas ka dhaxeeya maxay kula tamarkaa gaabka inta la see u boodi karaa baa isleedahay runtii marka hore waxaan xusayaa Mr. Daahriyaale Kaahin oo sharaf mudan runtii Ahmed Silaayna runtii sharaf mudan yahay Daahriyaale Kaahin anigu dalkan Ingiriiskan ku arkay runtii that time raggu u yeerayna waan ku jiray runtii u yiri wadanka kale oo maaragtay nagala shaqee sharaf buuna iga mudan yahay runtii miisaaniyadii Daahriyaale Kaahin way cadayd oo dawladda dhexe miisaaniyadeeda laguma dari jirin dawladda hoose cashuurta ka timaada laguma dari jirin caalamka ama deeq bixiyaasha tiisa separate bay ka ahay marka iyada way cad laakiin mudane Axmed Maxamuud Siilaayi ama xukuumadan waxay sameysay dakhligii dalka soo galayay oo dhan hal meel bay gelisay marka iyada uu koraya oo wuxuu koraya waxay dawladdu kordhisay cashuurtii ummadda ay laban laabtay dawladdu waxay duuday oo leexisay wixii qarash ahaa ee wadanka soo galayay iyadoo $1 budgetkii baa kordhay iyadoo marna oranaysa dhaqaalihii baa kordhay marka xataa hadaad u fiirsato xukuumadda ama wasiiradu markay hadlayaan dee budgetkii baa kordhay iyo dhaqaalaha kordhay waxaan u malaynayaa inay kala micno yeelanayso waayo budgetka kordhay waxa weeye caalamku wataa isaga awood diidaaba laakiin Soomaaliland way ku faantaa dhinaca kale dhaqaaluhu waxa weeye Soomaaliland xageebu dhaqaalaha kordhay uu ka jiraa inta la eeg way warshad wadankii male kaabayaashii baa maqan bangigii ama bangi sectorkii Soomaaliland baan bajirin ba saad ula socoto wadanka currency-giisu ma shaqeeyo saad ula socoto waxa la isugu diraa set baa la isugu diraa marka halka isaga xataa waxaad aragtaa dhaqaalaha saad ula socoto dhaqaalaha circle-ka wait circle-kii lacagta circle-kii lacagta ay wareegaysay maba jiraba marka halka isaga waxaad moodaa Soomaaliland xataa dhaawaca kale ee yaala waqtiga xaadirka ah oo miisaaniyada lafteeda ka muuqda dhaawaca ugu weyn ah inay dawladdu ay sameynayso inflationka waxa la yiraahdo sicir bararka waayo dawladdu haday qofkii muwaadinka cashuurtii ay ku kordhiso qofkii isaga ahaa sicir barar baa gaariya haday tahay dadkii ganacsatada ahaa iyagu lacagtoodii waxay saarayaan ama raashin ama waxay soo dejisanayeen bay saarayaan halka isaga ah
xukuumaddu xataa may eegin mana qaba anigu waqtiga xaadirka mudane axmed maxamed maxamuud siilaan waa nin dhaqaalaha yaqaana cidda sii deynaysa budgetka iyo cidda budgetka qoraysa maaha madaxweynaha waayo madaxweynaha baarlamaanka asxiin maxamed xanuun dib iyo xukuumadda ku yeelan karaa okay haddaan wax yar aan ku xusuusiyo waxa ku jira wasaarad la magacaabay maalmeed oo la yiri wasaaradda dalxiiska oo maaragtay madaxweynaha sharaftiisa aan oo ilaalinaya wasaaradda dalxiiska haddaad eegto la sii daayay wasaaradda dalxiiska budgetka Soomaaliland waa 362 gabigiisuba dhamaantiiba marka halka isaga ah wasaaradda dalxiiska waxay u baahnayd adroos waxay u baahnayd research badan waxay u baahnayd wasaaraddaasi xataa in laga hadlo oo daraasad badan lagu eego budgetkay u baahan tahay marka kharashkay u baahan tahay iyo miisaaniyadda dalka wasaaradda waxa badan wasaaradda dalxiiska miisaaniyadda ay u baahan tahay tusaale yarna waan ku tusinayaa shacabka Soomaaliland markhaati waxay ka yihiin wasaaradda dalxiiska diinta islaamku in la furo ma qabtaba waayo waa wasaarad badana xaaraan iyo waxyaabo fuqsi ah wasaarad ku xiran way wasaaraddaas haddii aynu dhinaca kale oo ka duulno caalamka way taayana ka dhaxbixin maxaa sababta u leedahay diintuna ma ogola fusqa wada maxaad ula jeedaa wasaaradda dalxiiska saad ula socoto ma qaba anigu inuu madaxweynuhu sameeyay waan ku soo celcelinayaa waayo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo dalka markuu qabtay marka la dejinayay adrooska dalka cid kasta isaga ka badaya isagaana yaqaanay dabcan muu sameyn madaxweynuhu 7 sano ayuu ku jiraa 3 bilood ugu dambeysay buu madaxweynuhu wasaaraddan keenaya waxa weeye wasaaradda markaan ku leeyahay waa xaaraan wasaaraddu waxay samaysaa caalamka waa loo yahay wasaaradda dalxiiska haddaad eegto wadamada dhaqaalaha hogaaminaya bariga dhexe haddaad eegto Masar oo kale waxa weeye dakhliga u soo xirooda dalxiiska ku jira oo ah waxa weeye marka halka waxaad ka aragtaa maxay ka sameeyaan dalxiisku waxa weeye marka waa clubs waxa weeye hoteelo badan oo laga dhisayo dhinaca xeebaha oo lagu xirayo maxay ahayd toolay airportka waa tumashay u badan tahay wasaaraddaasi waxa kale oo wasaaradda sharciga oo caalamka oo dhan hadaad eegto wasaaraddaasi inay u badan tahay xataa hoteelada in la heli karo khamri la heli karo marka qofka sii daayay qof garanaya ma hadii dhinaca kale aanu eego caalamka aan ka duulo caalamku khasab baa waxaas dhan la sameeyo dabcan qofku taariikhdiisa iyo wadankiisa dad soo booqanayo oo ixtiraamkii iyo meeshii wadamada islaamka oo dhan wada leeyihiin dalxiis waa wada leeyihiin haddana diintana wax ku dhibaato ah ma aha waa loo wada ogol yahay way yimaadaan ayagoo asturan qaarkood markaas waxa ay yihiin ama dalkaas laga dhaqankooda qaataan miyaan oran karin adi laftigaaga rabana si kale wax u wareejiso maya dalkayga iyo umadaydaba anoo sharaftiisa ilaalinaya runtii wasaaradda dalxiiska dalka uma fiicna tusaale ahaan waan ku tusayaa yar hadii baa bixisay daakiyaan ku noqonin dhaqaalayahan baa tahay cilmiyan u soo noqono adoo oo aan qofna ku durin ama cid baa sii deysay ama cid baa yan cilmiyan iyo waxa baratay waayo marka maxaa keeni kara in uu buka dhasho miisaaniyaddan Soomaaliland runtii baarlamaanka waan arkaynay oo baarlamaanka gudihiisa dee waxa ka dhacay waad arkaysay oo meel kasta waa tii laga soo daayay dagaal baa ka yara dhacay oo dee wadigii arkay iyo qaylo iyo wax kasta runtii baarlamaanku anigu waxaan qabaa miisaaniyaddan kororkeeda dawladdu waa 3 qaybood saad ula socoto baarlamaanka golahan kale oo xukuumadda iyo golahan kale ee u taqaano justice-ka ama cadaaladda garsoorka dalka saddexdooda ayaa loo kordhiyaa miisaaniyadda marka waxaan lagu dagaalamayay waxay aad iyo aad ummaddu ay ka wada warqabtay waxay ahayd in laga doodo miisaaniyadda iyo lagama doodaye isku duuduub ha lagu sii daayay sideeda ha lagu ansixiyo waana arrin runtii ay fiicnayd haddii uu baarlamaanku uu garanayo wanaagga dalka waxay ahayd in wax kasta ay cadaato wax kasta qof kasta uu ka hadlo miisaaniyadda la sii deynayo la eego wasaarad kasta yaa dabagalay laga hadlo wasaarad kasta budgetka ama miisaaniyadda loo sii deynayo la eego la isweydiiyo la yiraahdo miisaaniyaddii 2016kii
budgetkii horumarka loogu talagalay ma galay taas waad qeexday si kale haddana hadalka u dhigno daakir miisaaniyadda waa odoras sideedaba okay odoraskaas inta badan miisaaniyadda markii la odorasliyo dakhligaasa wadanka laga fili karaa dakhligaa horena waan u argnay example ama tusaale ahaan waxaa soo geli karaa hadda deeqaha caalamka waxaa imaan kara maalgashi baa soo geli kara oo shirkadaha imaan wadankii maalgashan kara kuwaad ka shirqaba soo macdan sameeyaa tiro lacagtooda aan lahayn baa tir waxaasoo dhan miyaa miisaaniyadda lagu qiimeyn karo oran karin kobaca dhaqaalaha iyo halka dowladda wax ka filaysa is leedahay dhaqaalaha iyo shaqaalihii baa amuurmayo oo maalgashiba dalka imaanayo sida dekada oo kale berbere oo kale shaqaalo badan baa la sameynayaa elaborada baa laga shaqeynayaa hadda suma dowladda inay ku mashquulsay sidii ay dhaqaalahan iyo budgetkan miisaaniyaddan ay sheegtay inay ka filayso laba jibaarka ay ku sameysay wax soo saarka dalka iyo maalgashiga iyo shaqaalaha iyo dadka oo shaqeeyo shaqo loo abuuro runtii miisaaniyadda markaynu ka hadalno ama kororkeedu ha keento dowladdu iyo ha yimaado ama yaysan imanin dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dhaqaalaha million times badan saad ula socotid marka budgetka horta aynu isla ogaano oo budgetku waa kharashkii dowladdu ay isticmaalaysay oo mala awaal ah waa mala awaal marka haddii xukuumaddu ay tiraahdo budgetkii baa kordhay sida ay sheegtay samsam boqolkiiba waxay tiri 27.5% baa kordhay 27.5 waa markaa iyada xataa samsam lafteeda waxay ku dhawaaqaysay waa yara maxay ahayd wali waxaan jirin waayo budgetku hadduu kordhay waxbaan ku tusayaa hadda adiga ama Somaliland hadday dhab tahay inuu wax kordheen say u dhacdaa wasaarad kasta miisaaniyad baa loo fasaxay dalkana waxa haya natural disaster abaar baa ku jirta abaartii ummadii iyo xoolihii way laysay lacag lama hayo lagu samata bixiyo ummadii marka xagee buu ka jiraa dhaqaalaha kordhay marka day way la hayaa kayd la hayaa wadanku haduu dhaqaaluhu kordhay kayd waa in la hayaa marka meel laga tixraaco kayd waa in la hayaa reserves waa in wadanka wuxuu yaalaa marka 7 goor mise 6 goor baa la sii daayay miisaaniyadda inta goorba waxay yiraahdeen miisaaniyaddii baan korinay dhaqaalihii kaydna wadankii ma yaalo wadanka abaar baa ku jirto waad aragtaayo ummadii biyayna haysanba marka waxa la sii daayay xataa sibay wadanka ugu khaldan tahay waayo wadanka miisaaniyad kasto la soo deynayo waxa ku jirtay dhinaca kale emergency budget waxa la yiraahdo loogu talagalay hadii wadanka dib ku timaado in lagaga saaro meel ay aaday lama yaqaan tay hadii wax yar aan isdul taago oo qof kasto ay dhageysta ano maaragtay gaarsiinaya waxaan jeclahay wasiirada wadanka la tuunsan yahay tay wasiiro dhowr oo la tuunsan yahay baa jira hantidii 40 milyan 50 milyan yeeshay oo la eriyinba iyaga dhan marka kuwaas oo kale in xukuumaddu ay fasaxdo oo dadka iyo hanti dhowrka in maxay hayto leeyahay sharcigii wadanka dadka waxba shaki aan jirin aduha abuurin wasiiro iyo kala xukuumad iyo ordad yaa jira dad badan oo xukuumadda ku dhex jira adoo kor baad ka arkaysaa laakiin adi aqoontaada dhaqaale aynu dib ugu soo dhaqaaqno miisaaniyaddani adoon cidna aanan u gudbin ama cid baa la tilmaamaya cid baa laga shakisiyaanay kullee meesha xukuumad markay jirto dabagal iyo ordad iyo xisaabtan uu imaanaya oo taa shaki kuma jiro laakiin anagoo kusoo noqona xeendaabkaaga aqoonta khaladaadka aad tilmaantay haddii aad daraasayso oo aad waqtigaas baa aad gelisay see lagu sixi karaa runtii dhinaca dhaqaalaha haddaad eegto caalamku wuxuu ku kala tegay waxa weeyaan dhaqaaluhuna ma jiri karo ama ma socon karo waa financial institutionka wadanka in laga shaqaysiiyo way tay wadanka saad ula socoto waan kuugu soo celceliyay oo miisaaniyadda yar ee timaada ama dhaqaalaha meel loogu talagalay ma gaadho maxaa ugu ah oo lagu xalin karaa waanigan kuu sheegay waxaan ku leeyahay dalku wuxuu u baahan yahay in hay'ad kasta ay ka duusho ilaalinta dalka iyo ummadda waayo qof hadduu mas-uuliyad ilaahay uu kula xisaabtamaya laakiin haddii wixii la weeciyo oo la weecsado dee waxaan u malaynayaa aakhiro iyo adduunkaba wax fiican maaha waxaan rabaa su-aasha ugu dambaysa adigoo oo aan runtii waxaadan hubin aadan tilmaameynin
khaladaadka ugu badan ee dhaqaalaha markay noqoto waxaa tiri canshuurta la kordhiyaa shacabkuna ayaguna waxay dul saarayaan wixii markaasi ay hayeen ee keenay dalka marka wax badan baana dadku cabaadaya aan aragnaa oo suuqyada ka cabado leeyahay sicir barar baa jira bangiga laftigiisii dakhligii lacagtii la isticmaalay wareegaysay sidaad u xustay dadkii lacag kaash maba qaataan wax numbers baa la isku gudbiyaa oo lacagtii ah shirkado kale oo iyana maaragtay ii sheeg lacagaha ka shaqeeya bacmushtar fiican ka sameeyey dhinacyo badan baa faa'iidooyin khasaaraystaba socdaan xukuumaddiiba hadda dollar bay isticmaashaaba oo inta badan lacagiiba baa laga tegayba dollar baa la wada isticmaalaa saameyn ma ku yeelanaysaa dhaqaalaha inflationka waxaa la yidhaha sixir bararku waxa weeyaan sida aad ula socoto waa waxa keliya ee ummadda iyo dalkaba maaragtay burburin kara sida aynu la wada soconno haddaba sixir bararku muxuu yahay waxa weeye waa kororka qiimaha iyo alaabta iyo khadamaadka marka good and services waxa la yiraahdo marka caalamku dariiqa uu ku ilaaliyo sixir bararka waxa weeye wasiirku ma ilaaliyo askarina ma ilaaliyo waxa lagu ilaaliyaa caalamka waxa weeye sharciya lagu ilaaliyaa iyadoo oo sharciyada iyo waxaan kuu sheegayo ay tahay inuu bangiga dhexe ayay tahay inuu ka ilaaliyo ummadda inflationka oo bangigu markaa isku maamulo monitor policy and physical policy dhaqaalaha wixii yaala in la isku miisaamo si ummadda loo ilaaliyo haddii aan dib u noqdo Somaliland ma laha CPI ama waxa la yiraahdo Consumer Price Index Consumer Price Indexku waa cabirka lagu cabirayo sixir bararka saad ula socoto sida aynu la wada socono ma jiro the rate of inflation ka meel xataa sheegi karta oo la oran karo wuxuu marayaa sixir bararkii 2% ama wuxuu marayaa 2 week kadib wuxuu marayay halkaas 20% cid og ma jirto laakiin the one oo cadaynaysa wax kasta waxa weeye dalku wuxuu u xidhan yahay waqtiga xaadirka ah group yar oo ganacsata ah koto ugu xidhan dalkii marka cilada iyada ana waa cilad ka jirta runtii Somaliland si baahsan uga jirta ganacsatadana waxay ahayd in sharci lagu ilaaliyo oo wasaaradda ganacsigu ay shaqeyso bolisiyadii bangiguna uu dhaqaalaha halkaas maaragtay uu ka galo ma jiro walaal oo de wasaaradda hadaad eegto hadda aan la kaftamo labada wasiirba ee wasiirka hadaad aragto ganacsigu waxa laga yaabaa inuu dhaqaalahaba wax ka aqoonba iska dhaaf wax kale hadii aan la kaftamo marwe samsamna inaysan aqoonba dhaqaalihi marka wadanku sibuu u cakaaraysan yahay dhinacyo badan anoo labadoodaba sharaftooda ilaalinaya de marka waxa aad iyo aad u qumanaan lahayd in wadanka horta lagu ilaaliyo marka hore shacabkiisa dad wax bartay baa jiro oo wixii de riixi kara gaarsiin kara meel fiican in loo daayo wasiirada aqoonta leh la geeyo meesha ay ku fiican tahay inflationku hadaan u noqdo wax yar wadan kasta isaga abaabka xidhaha tusaale yar baan ku siinayaa caalamka oo dhan hadaad eegto waxa dhaqaalaha dumiyay oo keenay badana economic crisis-ka inflationka ku jiray dhinaca kale hadaad eegto wadamada ay ku dhacay dhaqaale dumiska ugu waaweyn dunida waxa ku dhacay oo maaragtay saameeyay wuxuu ahaa sixir bararka iyadoo oo waliba uu ka imanayay hal dhinac oo ah ganacsatada oo raashinkay keenaan ama raashinkay dhoofinayaan price-kay doonaan iyagu goosanayay taa iyada ana waa ta hadda haysata Somaliland oo la arkayo waayo lama kontrolo qofka ganacsatada ah ee dalka keensanaya gabagabadii aan ku jirnaa adigoon aqoon-yahana dhaqaalayahana haddaa isbarbar dhigtid xaaladda gudihii dalka iyo caalamka dee dal dhibaato soo maray oo soo kabanaya oo dee Soomaaliya dhan baa dhibaatana haysataa marka seel isbarbardhig caalamka maanta waxaad ku hadlaysaa caalamka iyo halkan kala joogno waad garanaysaa gaabka noo dhaxeeya marka ma la isku dabaqi karaa laba meel la isku keeni karaa runtii way tahay waayo sidaynu la wada socono caalamku waxa lagu kala tagay waxa weeye aqoonta way saad la socotid marka qofka ka aqoonta badan ama wadanka ka aqoonta badan waa inaad ku dayatid
oo aad samayso ummadaada waxa riskiga u keenaya inaad ka ilaaliso marka waxa riskiga u keenay wadanka la yiraahdo Germany de waxa weeye Soomaaliland khasab bay ku tahay inay ka ilaaliso waxa jar ku imanaya riskiga hadii la yiraahdo marka wadankaas lagu daydo waxa la wada qabaa waxa weeye dalka in lagu ilaaliyo sharciga dalka u yaala aad ayaa u mahadsantahay Cabdi Cali Daakir dhaqaalayahan ku xeel dheer dhaqaalaha aad baan kaaga macnaa waqtigan siisay oo aan kala wareysanayna oo ka wada hadlaynay dhaqaalaha Soomaaliland aad ayaan idinka mahadcelinayaa daawashadiina daawadayaal iyo barnaamijka aad la daawanayseen waxaana marti noogu ahaa Cabdi Cali Daakir oo ah xeelad dhaqaalaha barnaamijkeena intaas ayaan ku soo gabagabeynaa waxaan ilaahay sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh